wixii aanu ka wada hadlaynana waxay ahayd sidii magaalada nabadgelyadeeda iyo dhibaatooyinka waxa weeye hadday tahay maamulka tahay laga sheegayo iyo haddii ay tahay kacdoonka dadka qaar inta badan ay siyaalo badan u dhigeen in waxaasoo dhan maadaama aan garaadkii gobolka ahay aan ogaado waxaasoo dhanna waxa weye guul bay ku soo dhammaadeen magaaladu waa nabadgelyo weeye dadka reer laascaanood waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaashada sidaa waxa weeye aad isugu xidhantihiin isugu xidhnaada waxa weeye maanta colaadi faa'iido ma leh dhibkay colaaddu leedahay waad garanaysaan dhibaato in idinku filan waad soo marteen maanta anigu garaad nabadgelyaan ahay garaadkii gobolkaan ahay nabadgelyaan ka hadlaya colaad ku baaqi maayo waayo kuwa halkaa ka soo jeedaana garaadkoodii baan ahay kuwa halkan ka soo jeedana garaadkoodii baan ahay ummadda soomaaliyeedna garaadkoodii baan ahay nabadgelyada iyo waxa weeye iyo horumarka in laga shaqeeyana waxa weeye dadka ayay dantooda ku jirtaa shacabka reer laascaanood haddii ay haween tahay haddii ay dhallinyaro tahay haddii ay cuqaal iyo guurti tahay haddii ay beelaha tahay iyo haddii guddigii 33 la sameeyey tahayba intaba waa is aragnay ilaa 7 saacadood shirar badan baa noo socday meel fiican baan wasla dhignay waxa weeye nabadgelyada hal la ilaaliyo reer laascaanood saxaafaddana waad aragtaan dhammaantood shir gaar